madaxdan campaign-ka ku jira maalmaha lacag badan baa ka baxaysa ama dhul ha iibiyo ama daar ha iibiyo marka wuxuu leeyahay waa iga rido ay doorto markuu isagu fuulana hadhow buu leeyahay keena wixii iga baxay markii hore aan idin siiyay keen ma hawsha saad doonaysa inaan ku qabto keen dadkoo dhan ma aha laakiin waa sida loo badan yahay way cid kastoo meel maamusha sida badan waxa laga cawdaa inuu qofkaasi wax doonayo hadduu cid wax u qabanayo inuu wax ku yeesho ay tahay wuxuu baadi doonayaa xoolihii badnaaye kuwii baarlamaanka dooranaya ama shacbigii dooranayay iyaga kaga baxay boqolaal kun baa iga baxay iska sameeyo waxan ma aha anay dhiibsan kugu dhiibay markii hore marka arintaasina shiraa'u damiir baa waa damiirkii oo la iibsaday oo nasiib darro jirto way dadka cid ay u codaynayaan duuyo sidaa kaga qaataana waa markhaati beena ayay fureen ilaahay baa satuktabu shahaadatuhum wa yus'aluun markhaatigooda beenta waa la qorayaa qiyaamahana waa la weydiin doonaa qofkaad laaluushkiya lacagta ka qaadatay ee isagoon mudnayn maamulkan amaba xaqba ha u lahaadee aad ka qaadatay markhaatiga aad furtay ee lacagta ku qaadatay waa la weydiinaya nooc khiyaamahana way noqonaysaa idan qadiyadaasina way dhacdaa waa ammaanad darro waa mas-uuliyad darro madaxdii marka la dooranayo in maal la weydiiyo ama iyagu ay bixiyaan waa wasiilooyinka iyo wadooyinka qaldana kursiga loo maro casrigan aynu joogno Soomaalideenna marka la eego qofkii markaa wuxuu ku xisaabtamayaa intaasoo adduunaad haysaa intaasoo qof ayaad heli karaysaa saasaad ku soo baxaysa marka qiyamkii iyo miisaankii wuu lumayaa haddii rashwada iyo laaluushka kursiga uu qofkii ku soo fuulo hadhowna istatiibuu doonayaa waxa toddobaadoo qaladaadka ka mida waxa la yidhaha taswiirka ama kaadhan la kala iibsado ha ahaado ama waraaqo la khaldo ha ahaado inuu qofkii ku xisaabtamo wixii lagu heshiiyey almuslimuuna calaa shuruudihim bay ahayd muslimiintu shuruuddooday ku soconayaan wixii la qortay qofkani wuxuu doonayaa inuu kaga tallaabo inuu si qalada isagu soo baxo waraaqaha qaybna uu iibsado isagana loo qalloociyo arintaasina nabigu uu ka digay calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay man qashana falaysa minna qofka muslimka iyaga wax isu weydaariya wixii lagu heshiiyay waxaan ahayn buu keenay isagoo wax loo malmaluuqaya ama xadaya oo xatooyo samaynaya annaga naga mid baa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dadku iyagoo gacmo maran ku sugan haddii ay wax xeerteen xeerkoodiina sharciga aanu ka hor imanayn inay ku socdaan baa dawgu uu yahay laakiin inay khiyaamada iyo dustuska wax ku raadiyaan iyo mansab iyo kursi waa waxyaabaha qaladaadka ah jira dadkuna in badan uu ka warwarsan yahay inay qardoofo iyo qallooc ka yimaado waxa sideedaadoo qaladaadka ka mida waxa la yiraahdo as-sabb wa ash-shatm wal iftiraa ayda iyo been abuuradka la isula soo fariisanaya baraha bulshada iyo tiifiyada oo qofkii uu isleeyahay si uu kani kaaga haro bal ceebihiisa sheeg ama ugu dardarba in dadku nacaano kadibna adigu aad soo baxdo taasina waa arrin aad iyo aad u faalxun ilaahay baa ka diga waxa uu dhina ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina aamanu lahum 'adhabun alimun fi ad-dunya wal aakhirah dadka muuminiinta kamida jeclaada walaalahood inay ceebtoodu baahdo cadaab adduunyo mid aakhiraba way leeyahay marka qofku wixii uu qabanaya inuu sheegayo ummadda wuxuu tarayay mooyaane inuu ka baac mushtareeyo kuwa kale ceebahooda waa dhaqanka shisheeyaha waliba shisheeyahana waynu ka sii daranahay oo gaaladu waxyaabo ka xishoodaan oo aana ilaa heerka gaarinba nabigu calayhi salaatu wasalaam dhaqanka noocaas isagoo ka digaya waxa uu leeyahay mu'min bid'aan wala la'aan wala al-faahish wala al-bari qofka mu'minka ay maaha mid nacdal badan dadka dura foolxun carab dheer tilmaamaha qofka mu'minka ay malaha xadiidka saxiix ibn mas'uud uu warinayo marka qofka mu'minka waa qof afbacaan oo nasiiho hufan uu yaqaana wadadu marayo iyo inay xalaal noqoto arintaasina way badan tahay oo dadka qaarkood
waxay hadhow ka soo kaban waayaan kii ay caayeen mar labaad inay la saftaan mid buu aad u caayaya gambarhku u fuulayaa wuu u kala abtirinayaa duruuftu waxay keenaysaa hadhow inuu isagii la safto oo ay isku koox noqdaan markaa fartuu dhexda ka qaninaya wuxuu leeyahay maalintii maxaa hadallada noocaas kaa yeedhsiiyey